muddooyinkan dambe teknolojiyadu sida wanaagsan u hana qaaday dhammaan bulshooyinkii caalamkuna ay awood heleen adeegsiga internetka waxa soo baxday caqabad aad u weyn taasoo marka hore la dhaadanayn caqabadaas oo dhibaato weyn u geysatay wax soo saarkii bulshada fikirkii bulshada iyo guud ahaan horumarkii bulshadu sameyn lahayd iyo isbedeladii wanaagsanaa caqabadani waxa weeyaan waa saamaleelku waxa uu caafimaad darro iyo waxa weeyaan dhibaataba ku keenaa jirka iyo maskaxda qofka ibn aadamka oo qofka waxa lagu tala galay siday culimada waxa weeyaan caafimaadku ay ka hadlaan inuu 8 saacadood qofku seexdo oo ku filan tahay 8 saacadood in qofku uu hurdo helo si uu nasasho wanaagsan u helo laakiin dibta jirta waxay tahay dhalinyaradan hadda joogta waxay aad ula cadiban yihiin ku dhiban yihiin waxa weeyaan inay hore u seexdaan habeenkii su'aalahan kale hadii aad seexato habeenkii waxa weeyaan 12 ama 1 oo kale ama 2 oo kale subaxan aad shaqo tagayso amba aad hawlo leedahay way kugu adkaanaysaa inaad si wanaagsan shaqadaadii u qabsato waayo waxa kugu dhacay waxa la yiraahdaa energy drinka oo tabartii aad wax ku qaban lahayd ayaanad helaynin maadaama jirkaaga nasasho helin maskaxdaadina aanay nasasho helin marka inaad aad uga taxadarto in aad saamaleyshaa waxay kuu sahli doontaa inaad wax soo saarkaaga wanaagsanaado firfircooni badan aad hesho caafimaadkaaguna sidoo kale uu noqdo mid wanaagsan in badanna waxa laga yaabaa inaad go'aan ku gaadhay inaad hore u seexato laakiin ay suurtagal ku noqon weyday sababtuna ay tahay self discipline kaaga oo macnaheedu tahay inaanad adigu tahay qof aan xakameyn karin naftiisa kana adkayn bashayga ugu weyn ee laga hortagi karayo caqabadan waxa weeyaan waa inuu qofku xoojiyo waxa weeyaan xakameynta naftiisa oo isagu u taliya oo iska maamulaa waxa weeyaan mobiladan iyo devices kan isticmaalayo waxaana la yiraahdaa si aad hurdo u heshid waa inaad saacad ka hor aad iska xidhaa telefoonadaada iyo dhammaan devices ka isticmaalayso laakiin dadka qaarkood maxay sameeyaan wulna inta badan ay sameeyaan dhalinyaradu inay la tagaan gogashooda habeenkii markay hurdo waxa weeyaan u diyaar garoobaan tanoo keensan doonta in qofka ay ku adkaato inuu seexdo hurdo helo iyaduna waxay ka go'an tahay qofka maalinkiisa oo wax weeyaan maalinkiina waxa weey shaqeysano oo inuu wax soo saar yeelano Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu talagalay habeenkiina waxa weeyaan inaanu seexano in badan baan waxa weeyaan diinteenu ku hadashay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa inoogu sheegay in uu habeenkiina waxa weeyaan ka dhigay dadka raaxo inay seexdaan oo mugdigani xikmadda ka dambaysa ay tahay inay nolohu helaan hurdo oo nastaan maalinkiina waxa weeyaan ay helaan ay shaqeeyaan oo ay wax qabsadaan لأنه القرآن كيسا كله وجعلنا ليلة لباسا وجعلنا نهار معاشا سكله نبي محمد عليه الصلاة والسلام في حديث كلها ومضى إذا وحى لو بركي كلها دودا مركها قف وحويا أن هبيك هدوك في نفسه يعني ويقعدك تينو كلها إنه واحد قبصه وإنه كد ذا لا إن نسكح كمينو وحويا دمان ديفايسز كان بقى وحيالها لا تعلقة وحيلان إلكترونيكا إنه استعمال سيدا موبايل ده iyo dhammaan wax kasta oo aad u adeegsan karayso internetka amba khadka si ay kugu fududaato in wax soo saarkaagu uu wanaagsanaado haddii kale waxaad la daala dhici doontaa caajis niyad jab culaysyo maskaxeed iyo sidoo kale tabar la'aan tan oo ay keensanayso saamaleelka habeenkii saamaleeleysan hurdo ku filan aanad helaynin